وحا مركز الرحمة الخيري إلى مرتيا وأنا عصبين مرر هرانا إلى صوب وضي حاضرات يوعد كلا دونا يوجدي فضيلة الشيخ حمود محمد حريكي وكم إذا علماء النواوين إلهي سبحانه وتعالى أجري حسنات بدن سيو runtii abaal iyo qiimo badan buu inagu leeyahay waxay nagala qayb qaataa sheekhu in badan wacyigelinta halkan aynu ku qabanayno isagoo xilliga arkaysaan ee labadii duurnimo ah xilligii dadku yara nasanayeen inoo soo tadxiyeeyey oo inoogu yimi inuu markaa inuu khayr inoo sheego mawduucu maanta inagala hadlayaa waxa weeye asbaabul hidaaya نعمة أبوه قفوا الدنيا مركو جوابه بها ونعمة الهداية مركهم سدال ويرا أسبابه هذا حاصل وحيابه المشايخ ما تمرتوا هاي إلهي سبحانه وتعالى شيخ وحلو ويديرنا سخاص على نوصل إلى وسوي ديسان إلهي سبحانه وتعالى علمه سيعفمات كسبه بركيه سيدا ونوصل تضحيه وقت كسينا وصورنا إلهي وقعوا مريم إذن كان إله وحيد كرجيني نجوا إنه ينبوع فوعه كلمة قيمة بدل الشيخ بن وجه دونه شيخ أبو سلوين إلى فليتفضل الشيخ مشكورا معجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa waxaynu isxusuusinaynaa dhamaanteen cidda wax oranaysa iyo cidda lagu oranayaba Ilaahay inaynu ka cabsano subhanahu wa ta'ala. qofku wuxuu qiimo ku leeyahay adduunyada marka uu joogo inuu Ilaahay ka cabsado subhanahu wa ta'ala. adoonku hadaanu Ilaahay ka cabsan micna ma leh noloshiisu micna ma yeelanayso wuxuu noqonayaa qof aan Ilaahay ka xishoonayn wuxuu noqonayaa qof aan Alle ka cabsanayn wuxuu noqonayaa qof aan dhowrsanayn laana wuxuu aabayeelayaan jirin sida awgeed ba qofka muslimka ahi Ilaahay markuu xusuusinayo inuu ka cabsado meel adag baa lagu xiray yaa ayyuhalladheena aamanu taqullaah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله عليه سبحانه وتعالى دديهم مؤمنين تأه الله كعبسة نفو لبها اكتو بريتو إلهي هرتي وحوقه الرأي أي هر مرسطي ما قدمت لغد مركز إلهي كعلي مرلبات واتقوا الله الله كعبسة إن الله خبير بما تعملون. خبير إلهي وحقوقاله وقن أقيهي أصلك هي حقائق الأشياء دقائق الأشياء سحيل دير أي إلهي وقيهي وحا سمين إنسان قف كستوين كم يدوحو سميني هداد وحبرانيسو هداد محان كورا شقيسانيسو هداد عباديسانيسو هداد قرآن أخرينيسو wax kasta oo aad sameynayso si aad u xeel dheer ba Ilaahay kula socda ma run bay waxaan ka yihiin ma Ilaahay dartii bay ka tahay ma ciyaar iyo qosol bay ka tahay ma waqti lumis bay ka tahay ma diin bay ka tahay waa lagu la socda waxay tahay laakiin adigu waxa laga yaabaa inaadan islahayn ama warsa ugu hayn si lagu la socdo sida awgeed ba dadku waxay ku kala tayo wanaagsan yihiin أما كوكلا قيمة بدنيهن سإلهي وقعب صدام سبحانه وتعالى قف بقفك وإلهي وقعب سي بدنيهي الدنيا دنا وكجو عينك ككلا آخرنا وكجو عين هنونك إيا باددة لبدا بإلهي باك عنك وهي يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته إلهي عدة ربو نحريستي سكو هنونية إمن كاينغا ملايين تقال ذي عالم كتشوغا إلهي سبحانه وتعالى إساقا إنك الدوي رحمة ديسة يا نحريستي سيديق ديسة
ayuu wuxuu inoo ka dhigay ummad muslimiin ah oo ilaahay taqaana oo rasuulkiisii taqaana ayuu ilaahay naga dhigay calayhi salaatu wasalaam isagaa inoo gartay ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii uu lumiyey ee hanuunkan weydaaratayna xikmad iyo qorshe fog oo isagu uu og yahay uu alle saa u yeelay subxaanahu wa tacaala marka hanuunku haddii ilaahay ku hanuuniyey oo qof muslima alla kaa dhigay hanuunku dhowr qaybood buu qaybsamaa mid waxaa la yidhaahdaa hidaayatul khalqi ilaa maa khuliqa lahu aw ilaa maslaxatih ilaahay makhluuqa oo dhan waa hanuuniyey wuxuuna ku hanuuniyey siday u noolaan lahaayeen iminka markaad fiiriso qur-aankuna waa sheegay allah subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay oo alle markuu tilmaamayo rabbuna alladii acطaa kulla shayin khalqahu uma hadaa rabbuna alladii rabbuna rabbigayo alladii waa axadka acطaa siiyey kulla shayin shay kasta khalqahu abuurkiisa wax kasta oo adduunkan abuuran cidda farsamadan iyo abuurkan u samaysay waa ayo allah soo maaha innaga sidayna u abuurannahay iminka yaa saa inoo abuuray xayawaanka yaa abuuray dhirtaad arkaysaan jaad walba leh cidda sidaa u abuurtay waa ayo wax kasta isagaa abuuray markaasuu haddana shay walba abuurkii uu mudnaa buu siiyey innaga hadda iyo adhiga iyo geela abuurkeennu isku midba misku si baynu u abuurannahay innagu markaynu dhalanno oo uurka hooyo ka soo baxno qof marya xiran ma jirto waynu qaaqaawannahay xayawaanku markuu haraggeennaas waxba ma saarna dusha ah xayawaanku markuu dhasho ee uurka hooyadii ka soo baxo cadka dushiisa maxaa saaran harag baa saaran adag dhogor baa ka sii sarraysa haddana harag yaa saa wax u abuuraya allah subxaanahu wa tacaala isagu marka marya uma baahna laanna markuu dhashayba cadkiisii harag iyo dhogor baa ka sarraysay innaga markaynu dhalannay jidhkeenna waxba kama sarrayn sidaa awgeed waxaynu u baahannahay waxaynu dee isku asturno oo cawradeenna ku qarinno oo ku xaragoonno oo ku asturnaanaynu u baahanay sida ilaahay u abuuray eeg inanka yar ama ilmaha yari markuu dhasho hooyadu way soo qabanaysaa isagoo indhaha isku haya oo iftiinka adduunka aan weli eegi karin marka ay hooyo naaska u dhigto markiiba wuu jaqayaa yaa u sheegay naaskan caano inuu ka jaqayo uu ku noolaado yaa ku hanuuniyey allah subxaanahu wa tacaala neefku markuu dhasho ee ridu ay dhasho orgiga ama waxarta ama neefka geela uu neefka yar dhalo markiiba xaguu u doonanaya inuu jaqo hooyadii buu naaskeeda jaqaya yaa u sheegay halkan inuu naas ku yaallo uu jaqayo allah subxaanahu wa tacaala ilmaha yar yaa u sheegay waxaan inay caana ku jiraan cid baa bartay caqli ma leh cidi ma barin cidi uma sheegin caawuu dhashay horu ka jaqaya haddana waa lagu barayaa marka rabbuna alladii acطaa kulla shayin khalqahu uma hada ilahay isaga hanuuniya hanuunka qaybtiisa labaad waa hanuun xilka rususha iyo nebiyadu ay wataan ah rasuul kasta iyo nebi walbo la soo diro xil waxaa saaran ummadii loo soo diray diinta inuu u qeexo oo u caddeeyo oo ilaahay caabuda yidhaahdo oo shareecada u sheego xilkaasaa saaran walaqad bacathnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allah laakiin yaa in qoxan qofka lagu duwo oo qalbigiisa la geliyo hanuunka ilaahay baa iskale imise qof baa arkaya wixii khayrka ahaa oo haddana aan ku toosayn imise aad aragtay aan salaad tukanayn aan soomayn oo aan maxaan ku raaysa asturayn oo waxun ka shaqaynaya haddana muslim sheeganaya marka waxaa kala jira wixii qofku inuu garto iyo inuu wixii ku dhaqmadee ilaahay baa duwidda qofkan in lagu duwo waxa kan oo lagu hanuuniyo ilaahay baa iskale sidaa ogeeda markuu nebigu adeerkii dul fadhiistay adeer laa ilaaha ila allahu dheh uu yidhi
oo uu jeclaa rasuulku inuu adeerkii ashahaato ilaahay muxuu ku yidhi innaka laa tahdii man axbabta adigu qofka aad jeceshay muxamadow ma hanuunin karaysid hanuunka ilaahay wuxuu u jeedaa waxuma sheegi karaysid oo waxuma caddayn karaysid maaha ee kuma duwi karaysid wey oo qalbiga uma gelin kartid hanuunka ma hagaajin karaysid adigu yaa qalbiga qofka u geliya khayrka allah subxaanahu wa tacaala ولكن الله يهدي من يشاء لكن إلهي بهدية وهنونية عدة أوطان نبي الله صالح قوم كيسي مركي الله صادري فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى رير ثمود وهنونيني ووضدي بانو عدينو دا نبي كيبا دول تاغن الله هدليا هذا نواديدين حق بين الآن كدورتين با إلهي سبحانه وتعالى فاستحبوا العمى على الهدى سيدا أوجد تضبية طبعا قار أيين هبين كي مالنتي إلهي هنو ويدي سنة اهدنا الصراط المستقيم وفاتحة إلا شنت صلاة مركا كولاتريو وتضبية طبعا ركعات لو الصبحية أفر ظهر كوالح أفر عصر كوات طبعا صدح مغرب كصدحية طبعا أفر عشاء تضبية طبعا ركعات ولبنا محين واخرنا فاتحة أنا محين كتير اهدنا الصراط المستقيم محين إلهي ويدي سنينا إنه إلهي نهنونيو وضد الصحة أنا قلت وسي هدي مركة إلهي مسلم كاري وقف دمر آتاي أما نرهق آتاي وإسلامي ما ألا كسي ألا كهنوني وقابه إيا ميله خير كيا ليلة قوسو دوي وهذا استرانتاي ودينتي يا خيركي أد أركيسو قرآنك إلهي سودجي يا حديثكي النبي عليه الصلاة والسلام دانتادو وحوية إن دلاشيد وهنونك قادتيد وإن كعبتا هلكا نفتن بني آدمكو روح يشير بيكا كوبانته روح دا وحا دويو درقية الدين دينتها درقنيس sida awgeed waxa la rabaa inaadan noqon qof ku dhex engegay geed biyo ku dhex engegay oo kale adigoo khayrkii dhex jooga goobtii quraanka iyo xadiiska iyo fiqiga iyo cilmiga lagu baranayo dhex jooga waa in subaxii waagiisu bariyaaba markaad soo gasho goobaha khayrka waa in wax ku kordhaan waa in iimaankaagu kordhaa akhlaaqdaadu korodhaa xishoodkaagu kordhaa xurmada iyo ixtiraamkaagu kordhaa dhowrsanidaadu waa inay korodhaa hadalkaagu waa inuu xisaabnaadaa diintu waa inay kaa muuqataa ilaa aad noqoto diintiyo soconaysa marka rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam adoomaha ilaahay kuwa khayrka badan waxaa kamida kuwa marka la arko diinta la xusuusto si diinta loo xusuusanaya sida qofkani diinta ugu dhaqmayay ayaa wuxuu noqday muuqaalkiisiiba diin buu noqday haduu hadlayo wax wacan waxaan ku hadlimay socodkiisa hadalkiisa akhlaaqdiisa qosolkiisa macaamilkiisa kulli shay shariicadu ku salaysan waqofka akhlaaqda diinta leh aan laba quuri kareynin maanta waqtiga la joogaana way ka sii xaq jirtaa xaaladda adag weeyaan ibni aadamka maanta haysata waa adag qofka ibni aadamku siyaabo badan buu qofku ku hanuunaa waxyaabo qofka soo hanuuniya waxa kamid ah wacdi aad dhageysatay oo ilaahay kugu soo hanuuniyay cid wax ku sheegtay oo hadalkii waanadii lagu sheegay qalbigaaga ay galeen waxa kamid ah quraankii iyo shariicadii iyo diintii aad dhiganaysay waxaadan aqoon u lahayn oo kitaabkii ilaahay iyo sunnihii nabiga markaad barato in qalbigaaga hanuun galo oo ilaahay ku hanuuniyo ku hagaajiyo عجلت أما ميموري درسي كدوبان وأدقيستي بقى لك وهنونين كرا أدين لأديم أيوبا إلهي كوهنونين كرا تراويح با إلهي كوهنونين كرا قفبها ديلا ورستو لا يراهدو محا سبب كوغوها هنونك قفبه وحبو شيغيا مالين بحصوصانيا مالين أيو حصوصانيا waxaa jiray nin kamida taabiciinta wuxuu ahaa nin burcad ah oo dadka wadada u galo furta oo hawl badan oo waxyaabo badan oo dunuub iyo macaasi ah caadaystay cishadii dambe habeen baa wuxuu damcay inuu aqal u dhaadhaco qof dumar oo xumi ay degan tahay oo ay ku ballansanaayeen xumaan inay sameeyaan
markii uu wasaqbarkiye gidaarkii u baxay oo aanu wali ka dhicin ayaa aqalkan u dhacayo aqal ku qabsan daaradiisa ayaa qof ku tukanaya salaatul layl markaasa wuxuu akhrinayaa alam ya'ni lil ladina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haqq ayadaas qalbigiisa ku dhacday marka labadan qof warisuma hayaan uga wad ninkana waa taagan yahay salaatul layl buu tukanaya quraankii uu akhrinayay ilaahay isagoo hor taagan ayaa ka darbiga inuu ka booda doonaya aqalka kale u dhaadhaco ama tuuganimaha ugu dhaadhaco ama xumaan kale ha u socdee ba qalbigiisa waxa ku dhacday aayadaas alam yaani lil ladina aamanu miyaanay u dhawaanin kuwa ilaahay rumeeyay qalbigoodu in ilaahay diintiisa shariicada ay u khushuucaan diintu inay qalbigooda qoyso oo ay dareenkooda bedesho oo dhaqankooda diintu bedesho kuwa muuminiinta ah miyaanay u dhawaan baa Alle leeyahay subhanahu wa ta'ala maxaa haysta diintii waan soo dajiyay maxaa haysta dadkani may soo toobad keenaan may noqdaan oo macaasida joojiyaan baa Ilaahay leeyahay markaasuu gidaarkii ka soo noqday bala ha qalbigaygu waa u dhawaaday bartii buu ku toobad keenay markuu ka soo dhaadhacay buu meel fadhiistay isagoo fikraya ayaa niman socotaa meeshii soo mareen markaasay waxay yiraahdeen war ina joojiyo aynu iskalka seexanno ninkii baa wadada ku jiro wayna dhacayaaye hada waa isaga ninka la sheegayo waa ina dhacayaaye war ma socon kareenaye nan guurayne ninkaasi ummad waa mariyay war aynu iska seexanno ninkii wuxuu noqday markii dambe kitaab kasto oo tafsiira kitaab kasto oo xadiisa oo sharxiisa marka aad kala furto magaciisa aad ku arkaysa qala al-Fudayd ibn Iyad rahimahullah wa ninka al-Fudayd ibn Iyad leeyahay wuxuu noqday nin caabid ah oo caalim ah ayuu noqday aayadaas qalbigiisa bedeshay xumaantii uu ku jiro dhan aayadaas bedeshay innaga quraankeenu dhiganayno sunnaha nabigeenu baranayno alayhi salaatu wasalaam wacdiga iyo khayrka limaada maxaynu ku duxilaayeen maxaa wax isaga ka bedeli laayeen maxaynu macaasida iyo xumaanta u wadwadnaa gooraynu dhimanayno miyaynu garanayna goor dhimanaysa ma ogid aqalkaaga dugsiga iyo malcaamada wadada gaari korkii meelaad ku dhimanaysa aduu ma ogid waa garanaysaa عشان دوين مقالة أردن وحي مر قرى درين كذي تابتي إنن هل مر إلهي وجمعيي فرحد دي يجير دي وحالة الماما يا وقت آخر الزمن كرسولك وحو شيء علامات الساعة قيام الساعة وحاكمت الموت الفجأة غير ذا لما فلان كابو النبي عليه الصلاة والسلام سيدا أقول حنوبة هاي قف إمين كام صوغ علي معتك يمركزك qof hore u dhigan jiray mid meel wax ku soo bartay mid iminka wax baranaya waa inay diintu waxayna ka bedeshaa waa in qalbigeenu diinta gashaa waa in dhaqankeenu wax bedela diintu bedeshaa waa inuu qofku iswareystaa bishan iyo bishan maxaa naaqis maxaa saayida saayid iyo naaqis isweydii طالع iyo naazil isweydii laakiin waa inaad xisaabtamin oo wixii aad isaga arato wax dhaqan inay iska yihiin ayaan darra weeyaan وحكمدا أسبابها هنون كالله وهلو بريادة إلهي باكمدا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي إلهي بريئة اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والنبي محمد وخير خلق الله إله النفط إذا عبسد هذا السي سد وين إله السي أو تقواه وانكاق عبسد نفط إذا إله وحد دقنا وحنكا إلالي وكوف استاسو نبقى الله بري هبين كمركو صلاة الليل كيسو تاغو هبين والباء إلهي مركو إسهر تاغو محوكو دعي سنجري اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت إلهي وأخلاق دا وناكسن يدين أخلاق دا في عن يوهنوني اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلهيو ومدو waxay isku maandhaaftay xaq aniga xaq igu hanuuni oo igu suq bu nabiga oran jiray kaleey salaatu wasalaam wa nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam
sida awgeed waxa kamida qofku ducada iyo baryada wuxuu ku ducaysan jiray Allahumma hdini wasaddidni walo fiirsa ducada ilaahayow ihanuuni oo itoosi buu nabigu oran jiray alayhi salatu wasalaam itoosi ilaahay oo ihanuuni ilaahay inuu hanuuniyo ina toosiyo baahi weyn baynu u qabnaa wuxuu oran jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi rabbi a'inni rabbiyow ii kaalme oo ii gargaar wala tu'in alayya ilaahayow aniga kaalmada iyo gargaarka iyo hiilka hay weydaarin oo hay dhaafinin wuxuu ku ducaysan jiray wahdini wayassir alhuda li ilaahu hanuuni hanuunkana ii fudaydi wixii aan hanuunka ku heli lahaa oo de farabadan oo waxyaabaha shariicadu la timi oo dhana ilaahay ii fudaydi buu oran jiray hadaan ilaahay ku fudaydin khayrka quraanka akhrintiisa ويسقبك صلاة صدقة حشوتك وردك خيرك هدان الله كو سهل كو ما سهل نانيس مكاسا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل دوفيرس إساقا دينت اللو سو ديبي إساقا معلم كي أمضى جبريل باوسي معلمة إلهي بو ويدين يا يوب كبر يا إلهي هنوني إنا توسي بولي إلهي هنونك إسهل ودادي سيقودو ونبي يقول عليه الصلاة والسلام إنك أوصي باهي بدن النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوين كيسو حكمدها اللهم إني أعوذ بعزتك إله العساد هذا أيان مجنجلية لا إله إلا أنت معبود حق لو عابد مجرى أديك موياني مجن وحن كاجا أهي إله يو إن هذا إلومين إن اللومه إله بقى إله ها إلومين إله يو مركادي هنوني سيد بدأت النبي يقول عليه الصلاة والسلام هذا الكوينه وينو دعيا النبي صلى الله عليه وسلم على اللومي ما يو إلهي بقى سودني وحكم إذا دعوين كيسي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني اللهم اغفر لي إلهي يؤيدا بداف ويسامح وارحمني إن حريص واهدني إهانوني وارزقني إلهي أرزاق وأرزاق حلال وناكسن إلهي أرزاق والنبي يقول صلى الله عليه وسلم حديثك وقرنا سنة 40 كيال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم أضوما يجيو سادو دنتين بادي باتين قف كان أنا وهنونية موياني يويديس تهانون أنا ذن هنونية بإلهي سبحانه وتعالى مركز سوى البعض عنته أو دذال كاغو أو عنيه هإلاوي بريادة إلهي وحكم إذا الإيمان الراسخ إيمان كاغ أي عقيدة هذا إن أدو إلى شط وحي إيمانك ويقيا نسقامنا كإلى لسين خرافاتك يا بدعة يا فاليها يا فوحيها يا وحا وعنين فالك يا سحرك يا قرنك أصدقنا عقيدة وسخينا إن تكفوقات ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فالآية أوفرس إلهي قفك سيدنا الرمية محو إلهي سينيا قلبي سال هنونينيا قلبي قال له هنونينيا هذو قلبي هجاجنا شركم هجاجة مسمى هجاجة يا وهجاجة لأنه قلبي جرك حكومة صومه هذو قلبي وسخوبه حمادنا شركنا وحمانيا وسخوبيا سيدا سوحا لو باهي يقفك مسلم كائن آد قددال وحكم إذا التوبة والإنابة أسباب تهنونك كوغو سوغايسا وحكم إذا هدي غورالي الله ينقل نقطه أو توبة كنت وهذا السلاوين وهذا السلام وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا رسولكم حورنجي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ورددوا الله توبة كانوا الله صون نقطة دم بدافنا ويديستا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة بقول قار أيان أنيقو مالنتي إلهي وتوبة كينا ودم بداف ويديستا وصون نقطة النبي عليه الصلاة والسلام فالهذا يسويدي انت هاوين ودم بابين سدح قضب وخطرين حيستينك دم بيجينو وابدين توبة كينونا وايريه دعادينا إيا بريادينونا وايرته مية سدح قبان كريان دم بيجينيو بدن توبة كينيو ير iyo baryadii ilaahay oo inagu yar waa in qofku toobad keena habeenkii intaadan seexan markaad aqalka meesha jiifsan lahayd timaado
adoo wayse qaba laba rakaca sunnah inta tukato ilaahay bari ilaahay u toobad keen jiifka ku dhiman doontida ma ogid firaashka adiminka jiifsatay adigoo meeda in laga soo qaaday mar baad u haysaa waa maya imisa intay seexdeen meydkooda laga soo qaaday firaashka ina Allah u toobad keento marka ilaahay barido dambi dhaaf inaad weydiisato aad noqoto waaba tahay aad cadaysato adoon baahan oo ilaahay aan ilbriqsi ka maarmayna tahay marka nabigu wuxuu oran jiray alayhi salaam galab iyo subaxba wala takilni ila nafsi tarfat ayn ilaahay oo naftayda ilbriqsi haygu siideyn waxa ma qabsan karaya ilbriqsi isha waa in marsal isugu qabto inta ilaahu kaama maarmi karo wax ma qabsan karayo naftayda ilaahu haygu siideyn waa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam inaga xagee joognaa marka toobad iyo istighfar badan baa leena ka raba waxa kamid ah waxyaabaha hanuunka adkeeya oo qofku inuu cagaha dhulka ku hayo diinta ku sugnaado sabab ugu ah waxa kamid ah alquran tilawatu wa ta'limu quraanka oo qofku akhriyo oo quraanka oo qofka si sax u barto xuruftiisa hingaadiisa xarakadiisa oo jajabaan quraanka qofka ku baran inuu akhriyo quraanka oo wardi ka dhigto maalintii juz ama laba akhriyo inuu ku tukado quraanka xiliyada quraanka la akhriyo xiligeeba ugu fadli badan waxa ugu fadli badan quraanka aad akhriso adigoo ilaahay hortaagan oo salaad ku jira waxa ugu fadliga badan quraan la xilli la akhriyo goorma ugu fadli badan adigoo salaad ku jira quraanka aad akhriso ilaahay aad hortaaganta ثانيا وقت قرآنك الله أخريه وحا ugu fadli badan habeenkii niska dambe marka salaada ka baxdo oo cibaadaysato inaad kitaabkaaga la soo baxdo dadku waa hurdaan qof waliba aqalkiisa ama halku u hoyday buu jiifa xilliga kitaabka la kala baxa akhri quraanka kariimka waxa ku soo xigaa wixii kale ee marka quraanka malcaamada ku dhigo ama meel kale ku akhriye ayaa ku soo dhow إلهي سبحانه وتعالى وحليه قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا رسولك يجا يدين ويدين عدين وحبذا مما كنتم تخفون من الكتاب وحبذا كتابك قرين شرتين ويعفو عن كثير وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين كتاب كاس إلهي حقي سينو كيم نور مبين يهدي به الله قرآن قال له وحو كهدية من اتبع رضوانه قفر عليها شيء سرعة سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم كتابك قرآن وكتاب عجيب سيدا أوجد وحل هذا قفك قرآن كأخرس كيسة دائمة حصوصته كما تكتب حتى هدوه ويلوه أو عمريه ما أساسقه قفك قرآن كأخرنتيسة دائمة marka inaad quraanka akhrintiisa daa'imtid oo aad badsatid wala marmaan laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun kitabun anzalna ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab kitab barakaysan baan idin soo dejinay ilaahay hadii xitaa aadan akhrin oo mushafka aad saa u daawatid daawashada indhaha oo kitaabka daawanayaan baa daawa indhahaaga ku caafimaad ay daawashadiisa akhrinta aad akhrinayso ee carabkaagu noqnoqonaya qoyan yahay caliyada dhiigaaga iyo dheecaankaaga raacaysa waa dawo waa caafimaad quraanku fihi shifaa'un linnaas dawo weeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala marka quraanka waa la barto oo qofku ku dadaalo quraanka casharka inuu soo qaybo oo ka baxo oo inuu xifdigi iyo maxaan ku iraahdaa qaybisti iyo sixidii quraanka isku wado tafsiirka inuu qofku raacdo dhageysto jus inaad u soo duubato tafsiirka waa dhageysato tafsiirka aad bay muhiim u tahay macnaha quraanka oo dhan baa ku dhadhamay laakiin quraanka inaad iska baaciso la sax ma sida gabayga loo tiriyo kale ma aha quraanka in lagu dadaalo waa isku dardaarayna habeenkii dadku hurduu igu tukan jiray way akhrin jiray maalintii buu akhrin jiray kitaabka quraanka saaxiibu ilaaha ilaahayo maanta waxaan ka codsanayaa inaad ii saamaxdo oranaya hadda waa quraanka ku qoran kitaabada oo hadlaya oo muuqaal leh baa imanaya waxa hogaaminaya nabiga kaleey salaam suuratul baqara iyo aalu imraan iyagoo daruuro waa weyn la eg bay soo degayaan oo imanaya
qofkii akhrin jiray la saaxiibka ahaa dadka way ka garanayaan way soo dhufanayaan adoonka ilaahu noo soo qabo adoonta ilaahu wayna akhrin jirtay habeenkii bay nagu tukan jirtay maalintii bayna akhrin jirtay waana xafidi jirtay hadaan quraanka nahay ilaahu way xafidi jirtay way ugu tukan jirtay intaas nolosheedan kamid ah saaxiibaan la aha ilaahu maanta waxaan ka codsanayaa irgana kaaga ahay inaad saamaxdo dhaafto oo u sii deeniya Allah subhanahu wa ta'ala خلاص نعيم الدنيا والآخرة وضحش مركز على ورني آخر قرآنك إلهي سبحانه وتعالى وحدوني أجناد مرسنا دكت قرآنك يقف كني أنتو يقانيب بلابا يا مرك آيات ولي بأو آخريو شرن شرا كرا أيو دلعيا جناد إلى آيات قدام بيسا القرآن كتقاني جناد كوجلسة آيات قدام بيسا هل كامك دافين ويدو هل كادك بالأورن يقفك شوف هذا توان جزء تقانيد كور انت آيات باكو جرا توان كجزء قرآنك وكتاب عظيم وقت جنا ضدك واكفوا قاعدين حيابك كلمات هذا اللي مشغولين قرآنك وقدر دار منه وأنا هنون قفك أنت قرآنك يستوي هنون سنيه وحكم إذا صاحب ونكسن إن الله صاحبته حيابه هنون قفك كويل عليه كميت قف إسكالو ما متشرو قف كستول لومي أما حمادي صاحب حنبال لومي إلهي سبحانه وتعالى قرآنك كجور رمي سبحانه وتعالى إن في سورة الفرقان إلهي قرآنك وكجشيكي صاحبك ونكسن وكشيكي سورة الكهف دلين يردي دين تودر لبحثتي إيه هجك الشيء إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى دلين يرى إلهي رميه بأحاين هنون بانو زيادين بل هذا إيه قرآنك لمن كان دلين يرى تضبع أحاين أما سيديد بأحاين waxaa raacay oo la socday eygii nimanka culimada ah ee dhalinyarada ah raacay ilaahay raacidoodii ila saaxiibku la saaxiibay ayuu ku karaameeyay quraanka lagu sheegaya bal fiir quraanka la akhriyo ba ilaahay eygii ku sheegay eyga maxaa loo sheegayaa iyagu godka la galo saaxiib la ah oo raacay raacidii uu raacay kaliya ba ilaahay sheegaya fi suurati al-kahf sida awgeed qofka wanaagsan baa la raaca oo ka akhlaaq wanaagsan oo xijaabka kaaga fiican oo diinta ka jecel oo khayrka ka jecel kaasa la raaca korbu ku soo qaadaya qof laakiin arintiisu dhan sheeko iyo qosol iyo mobile iyo ciyaar iyo saksaag iyo waxbarasho gogoyn iyo aynka oo tahay hadaad raacdo hadaad dadka ugu fariidsan tahay taxad ka tagaysa sida awgeed waxa loo baahan qofka muslimka qofka wacan raac rasuulku muxuu sallallahu alayhi wasallam almar'u ala diini khalili qofku la saaxiib yahay buu la diin iyo dhaqan yahay falyanzur ahadukum man yukhalil waray qofka idin kamidaho qofka la saaxiibayso ka fiirso nabiga alayhi wasallam hadhow ha cabanin ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila الله هدانا هبل صاحب كدكتين هدانا هبلايو أنا الله صاحب هدي أدو بريتين أنت كو عبادي دونت لم أتخذ خليلا ومعوك يالي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني هنونك دينتي خير كيبو يقلوا ميي أنا هو ناكسن أو أستورا أو دينتا وحبرشدا حشوتك إخيارني ماذا كو ناكسن أيام كو حدي لا ما أرك ميلان مرك لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا شيطانك وحور أهاذي أما يهيب ونقضي إنسان كمت حكرذب إلى هير أوهوشية ويا إنسانك إنه كدو لي ودوني إنتاس إسكا إلالي مركا صاحبك حن راعديسة وحيابها هنون كاللقوة يكمت إمي سقف أو وناكسنا أيا أنتو قف حن لا صاحبي كركارك ويدارتي قف وناكسن لا صاحب waxa kamida hanuunka waxa lagu helo ilaahay ku kalsoono diinta ku kalsoono shariicada ku kalsoono inaad ogaato muslim aad tahay meeshii ugu sareysay baad joogtaa wixii ka hooseeya waa baaba waxba kama hooseeya iminka hadaan dabaqan dushiisa fuulo oo aan iraahdo salaan la'aan baan soconayaa oo dariiqaas aan tagayaa soo ama chachabi maayo ama dhiman maayo meesha ka soo dhaco سوعين كمان
meel ka sarreysaa ma jirto soo ma maanta qofkii muslimka isagoo meeshii u sarreysay jooga oo ilaahay alle u yahay oo rasuulkii Muhammad ah rasuul u yahay oo kitaabkii quraanka ah kitaab u yahay oo sunnihii u haysto kuma kalsoona hadana gaalu ku kalsoon yahay labiskooda xaragadooda qaabkay u hadlaan qaabkay u shaqaystaan buu ku kalsoon yahay maxaa ku diiday inay ku kalsoonaato ilaahay ku kalsoono ogow muslim wax ka sareeya ma jiraan gaal iyo munaafiq oo dhan waa gunta hoose ilaahay diintan aad haysato ku kalsoono ha u arkin xijaabka iyo quraanka dhiganayso iyo xishoodka iyo diintu dib u dhac inay tahay u arkin u arag inaad tahay meeshii u sareysay waxa ku hadhsan oo kaliya inaad dhimato jannada gashan baa ku hadh wax adduun ilaahay uu bixiyo oo bani aadam uu siiyo wixii ugu weynaaba ilaahay ku siiyay hadaa garanaysa way ilaahay wuxuu bixiyo nimcada ugu weyn uu bixiyo waa iimaanka iyo islaamnimada iimaan iyo islaamnimo alla ku siiyay ka abaad muslim tahay wax kale oo adduunyada lagu bixiyaa ma jirto oo ka weyn islaamnimada iyo iimaanka waxaan kale oo dhan waa uska ka dambeeya sida awgeed ba ahlu jannuhu markay jannada galaan bal quraanka cajiibkiisa fiiri ahlu jannuhu markay jannada galaan wixii adduunka ay nimco ku haysteen oo dhan way ilaawayaan marka hore ama sheegi maayaan baba waxa ugu horeeya ay sheegan waa maxay iimaanka islaamnimada وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله iska warrama marka ahlu janno waxay oranayaan ilaahay baa mahad leh dunida markaan joognayna iimaan iyo islaamnimada siiyay nagu hanuuniyay diinta nagu duway nagu dilay dhaxalka yagii iyo hooyga yagii janno ka dhigay allahaas mahad iska leh wax kale maanta ma sheegayaan aaway aqalladii ay dhisteen aaway maalkoodii ay tabcayeen wixii ay dunihayeen ama soo mareen meeye ma sheegayaan shayga ugu qaalisan bay sheegayaan al-iimaan wal islaam ina diintaada ku kalsoonaato waman ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim balu fiirso ilaahay qofka qabsada diintiisa ku dhaga waxa dhaba wada toosan ilaahay inuu ku hanuuninayo sida awgeed baa dadkii diinta ka weecday ee ku kalsoonaan waayay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kitaabka iyo sunnaha iyo diinta meel xun bay ku dambeeyeen nolol xun bay dhinteen khasaaray ku dambeeyeen gobonimada iyo guushu waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo la raaco فأما الذين آمنوا بالله في رسالة القرآن سوها الله كو إلهي رميي سبحانه وتعالى واعتصموا به قبصد إلهي دين تسيا كتابك سيلوك ليا فسيدخلهم في رحمة منه إلهي وحو قلين دونا نحريس حقي سكاهات وفضل إيا أبال ديرادو سين دونا ويهديهم إليه صراطا مستقيما ودونا أكسن وكهنونيا محاكا له الله القرآن وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشاره نبي محمد ومؤمنين الله يا رسول كيسا تقانا حلو وبشارين يا بأن لهم من الله إلهي حقيسة إلي كليهن أبا الآدوين بألا أكتي كليهن سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين بالقرآن كفر سوء الله تذكر الله ولو هجا يا نورش هذا واتقوا الله ألا كعب صدا واعلموا أجادا أنكم إذنكم ضديه ما أنت النول الدنيا دول شوجا ملاقوه إلهي بالله كل ميتونتا إله مرك لا كل مو ضدك كلا آيرون كلا فيلرون منافق با ميشا إيمان قال با إيمانية مؤمن با إيمانية يا أغفل رون مؤمن كأغفل رون وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فكسر النبي عليه الصلاة والسلام قفك مؤمن كأها يأدونك الددالي وحنك دعدعين أيا إلهي سيجارة أغيرية كالب الله أرنيا والله فقا يا إلهي عدي أركي ميسو عدي قرن ميسو عدي موغا قارب ولا فقيا
markaas alla wuxuu ku oranayaa ata'rifu dhanba kada dambigii caynkaas ahaa ee aad meesha iyo maalinta samaysay ma xusuusata ha ilaahu waa garanaya dambigii caynkaas aad samaysay ma garanaysa ha waa garanaya ilaahay fayuqarriru ilaahay markaasuu qirsiinaya dambigii uu galay dhowr baa loo soo qabanaya markaasuu is oranaya walle maanta gacan gashay ilaahay muxuu sameeynaya waa isaga iyo allah cid kale arkaysa ma jirto satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm adduunyada ana ku asturay markii waxaas aad sameeynaysi maantana waa ku saamaxay buu alla oranaya kitaabkiisa midigta ka siiya midigta laga siinaya baqdin baa mar dhaweed haysay muxuu markii isu bedelayaa fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah ajib ufirs mar dhaweed u baqaysama ilaahi subhanahu wa ta'ala baa la hadlay muxuu islaha baqdin baa ku jirtay soma markii alla uu yiri adduunyada ana ku asturay waana ku saamaxay kitaabkii maxaa laga siinayaa midigta looga dhiibaya farxad kitaabkayga waa ka akhriya soomaalida arag jaamacadaha yar adduunka lagu dhigto marka baaninta la qaato shahaadada qofka la siiyo igu sawirtu waa badan tahay Soomaa kolba isagoo waalidkii la joogo waa faraxsan yahay waa caynkan marmar bay koofiyadaha kor tuuraan Soomaa wuxuu ku faraxsan yahay qofkaas shahaada la siiyay Soomaa ashahadatul a'zma wa kitaabka midta aakhir lagaaga dhiiba weey nolol ka dambaysa ka qiimo badan ma jirto asbaabta hidaayada waxa kamid ah rasuulka raacidiisa alayhi salaatu wasalaam wattabi'uuhu la'allakum tahtadun rasuulka raaca wa hanuunaysan wa in tuti'u tahtadu hada rasuulka ateecdan wa hanuunaysan rasuulka noloshaada ku xid salawaatullaahi wa salaamu alayhi raacitaankiisa sunnihiisa baro siiradiisa baro akhlaaqdiisa baro wa innaka la'ala khuluqin 'azim ba ilaahi subhanahu wa ta'ala سيرتي أخلاقي برو هذا سيرة رسولك أخرسته والله لا رأيت عجبا وحياب لبضر قصة أخلاق دي سيدات فيرس رسولك صلوات الله وسلامه عليه عائشة واحد ترى قرآن كما أخرسين أخلاق دي سوى قرآنك صفات كيسي أبور كيسي إلهي سوى أبوري أبور كيسي عين كوها كتابتك قرنت صنها رسولك تراعيسة صلوات الله وسلامه عليه ilaahay meel wanaagsan ayuu ku geynayaa adduuniya aakhiro guul iyo liibaan baad ku dambaynaysaa waxaan ku gabagabeynayaa hadalkayga waxyaabo waxa jira hanuunka qiimaha badan carqaladeeya ama iska ka hortaaga ama wadada ka duway koow waxa ka ah caadada iyo dhaqanka oo diinta ka horeysiiso mahmaahaheena khaldan waxa kamid ah caado la caasi cara alla ilaahay ma yiraahdeen caado la gooyo cara alla ilaahay waa mahmaa khaldan way waa wixii caado ah ee dadku ilaa dhaqamay leeyihiin oo caadaysteen waxna diintay waafaqsan yihiin waxna diinta ma waafaqsana wixii aan diinta waafaqsanayn shaqo ku taala ma hadiga waa faanta Soomaa waa wax badan baa jira diinta waafaqsanayn oo de maxaan ku lagu dhaqmayo halka waa inaad iska dhigtaa nimankii gaalada ahaa ee adduunkan soo maray ayaa eeday oo diintii iyo iimaankii ku waayay markuu rasuulku diinta u bandhigay wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah ورaaca ilaahay wuxuu soo dejiyay diina qaaluu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aabaana may raaci mayno waxaanu aabayaasha iyo awowayaal ka soo gaarnay baanu raacaynaa markaas ilaahay jawaab sahlan baa la siiyay awalaw kana aabaa'uhum la yaqiluna shay'an oo hadii aabayaashood aanay waxba garanayn oo jaahiliin ahaayeen waayaaba miyay iska daba gelayaan baa la yiri wala yahtaduuna aanay bahanuunsanayn هداني هنسنين وإحنا قرنين ما وحويان مسير إن الله يودبجليان بقول الله سبحانه وتعالى إسكا إلى مرك وحي شريعته أنا أقولين إسكا إلى لأن إلهي وكو أركا وكو مقلا وكو لتشيرا وكو أجي هي وأنا كو تشيرا قضب كلا بعد هنون كقفك ويداري وحوي التعلق بالشهوات نفتني وحي ربطا حمان ودن هذا استراحة النفط وحي ربطه حن سي أو هذه أو كذبتك وتكون بايسة وحي ربطه النفط إنه زينيسته وحي ربطه إنه وحده وحي ربطه إنه وحيده وحي ربطه إنه وحببرن وحي ربطه إنه عنتو عبتو شيفتو صوكعده وحي ربطه إنه يدور سته
waxay rabtaa inay been sheegto inay wax xamato inay xaq darre wax ku disho in aanay cibaadeysan oo salaad tukan oo aanay soomin oo aanay wardin oo alla bariyin waxaas oo dhan bay rabtaa inna an-nafsa la ammaratun bis-suu naftu waa xuma farid badan tahay baa ilaahay yiri si aado bay naftu xumaanta dadka u fartaa baa ilaahay leeyahay sida awgeed ba jannada waxa lagu galiyo waa la tilmaamay wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa ha ku xiga fa innal jannata hiya al-ma'wa jannada hoy u noqonaysa naftaada inaad marka wixii xun ka qabato naftu wax xun way damcaysaa la shakka laakiin marka ay wax xun damacdo waxay ku oranaysaa inaad hees dhageysataad u baahantay waxay ku oranaysaa inaad been sheegtaad u baahantay waxay ku oranaysaa inaad waxadaad u baahantay ilaa shaytaan baa kullamaan oo waxan u laqimaya qalbiga markay kaaga soo dhacdo gadiid nafiyahay u kaadili dantaadu kuma jirto jidhkaygu waa cadiye hilib iyo xirido iyo lafa isku dahaaran dhiig iyo dheecaan baa u dhaxeeya kiliyo iyo wadno iyo beer iyo calool baa ku dhex jirta dab ma xamili karo adiguna dab ma xamili kartid annaha igubin adnaha isgubin ilaahayna yan dabna gelina inaga daadhe celi nafta waa laga celiyaa a'uudu billahi minash shaytaan rajiim shaytaanka iskana kadabada ka riixayana waa baacinaysa iyadana waa aqli celiya u sheeg haday ku tiraado naftu waxaan u baahan tahay xumaanaad samayso may ilaahay bayna arkaya sida awgeed waxa aqeeda saxiixa kamida qofku inuu isku rabeeyo Allahu yasma'uni Allahu yarani ilaahay baa ii jeeda ilaahay baa ii arkaya ilaahay baa ii maqlaya ilaahay baa ila jira ilaahay baa ii og xitaa mararka qaarkood wardi ahaan baa laga dhigtaa bimaana waxa looga jeedaa naftaad qaybsiinaysa naftaad baraysa u sheegaysa nafiyahay ilaahay way arkaa nafiyahay alla wuu arkaa alla wuu maqlaya markaad ku celceliso oo ku celceliso oo ku celceliso de marka dan uu qabsanaya Soomaa qofka nafta bar oo ku celceli hadhow waxay keenaysaa markaad wax xumaana u dhaqaaqdo inaad tiraahdo ka soo boodid markiiba hadii kale aad nafta hore ka gasho khatarteeda way noqonaysaa waxyaabaha waxa kamid ah ittiba'ul hawa hawadaadu aad raacdo waxyaabahaas oo kale kamid tahay waxba lagu halaagsamayna kamid waxa kamid ah qofku inuu sii muddaasi noolaanaysa waqti baa ku haray dheer dhalinyaro tahay iminka waxba maadaa waliba hooyo noqday maadaa wali ubad yeeshay mabaadan gaboobin markaad islaam weyn noqoto sida ayayday hiblaayo oo kale xilligaasna dhiman doona warkaasi war soconaya la malku mawdku iyo ajashu da'yarta waa dhimataa imisa ilma yaro intay hooyo caawa dhashay baqtiyo dhintay markiiba imisa isagoo caloosha ku jira dhintay oo isagoo meeyda laga soo saaray hooyadii Soomaydina arag imisa wa kam marka adigu ma ogid xilliga dhimanayso naftaada waa inaad ku xidhaa xilliga dhimanayso inaanu fogeyn dadaashid macaasidiya dunuubta wixii ka dhacay ha caadaysan wixii xumaanay ka dhaca ha qabatimin ku dhiman doontaa ma ogid hadaad macaasiya dunuub samayso mesela filmaanta daawata mesela heesaha dhageysataa mesela waxyaabaha xun baad ka shaqaysaa hadaad mar iyo labo iyo saddex iyo 10 iyo 20 ku badbaaday oo ilaahay ka samata bixinayo meeyaad war u haysaa cishada dambe adoo daawana dhimanayso war baad u haysaa ha ku dhimanin meel xun si xun ha u dhiman waayo qof waliba wuxuu ku dhintaa lagu soo saarayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam waxyaabaha xun caadaysigooda iska daa waa lagu dhintaa waa lagu khaatuma seega waa lagu baabaa khatar cadiim way naftaada ka goo uma baahnid ogow rasuulku inuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofka shay ilaahay dartii uga taga wax ka khayr badan buu alla ugu bedelaya midalan tiktok aad isticmaashaa waa dhageysataa dhalinyarada dardaranay soo gasha daawanaysa waxa la sheegay oo dhan baad ku xidhan tahay waxa soo dhan baad ka wada adiga marka qaarkood gala hadaa doonto hadaa iska dayso waxa ka fiican baa lagu bedelay waxa la arkay dadkii wax baranaya oo malcaamadihii macaahidii dhiganaya oo iskuulaadkii dhiganaya oo aroor walba jarmaadaya oo dhalandhoolaya oo caraabaya qofkii hadana aqoon ma hayo war qofkan maxaa haysta maxaa qofkani qalbigiisa cilmiga u qaban laayay waa macaasida de waxaan hadii aad waxaan isqaban karin isdaba wado waa khalaas
sida awgeed ba qalbiga waxa maydhaya oo xusuusta maydhaya dunuubta macaasida qofka uu ka dunuub yar yahay waa ka xifdina fiican yahay waana ka aqoon badnaanaya ilaahay dambigeena ha dhaafo dambiga waalidkeena Allah ha dhaafo dambiga muslimkan Allah ha dhaafo ilaahay waxaan ka bariyaa inuu cilmi naafica iyo amal saalix ina siiyo waqtiga cimriga noo barakeeyo khaatumadana inuu hagaajiyo macallimiinta iyo maamulaha iyo khayrka dadkan waqafka la baxay dhamaana ilaahay abaalkooda uu janno ka dhigo adduunkana ilaahay barakeeyo ilaahay waxaan ka bariyaa inuu idinkana cimriga iyo aqoonta iyo waqtiga idin